بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم موتانا واشفي مرضانا يا رب العالمين. اللهم اني نسألك العفو والعافية يا رب العالمين. كبرك وقوي إلهي صنكون نافلة كبري كرامة جلو هدو كبرنا واعيدا waxaa jiray gabay uu tiriyey nin la yidhaahdo xaashiciga oo yoonis nuuxa oo reer gadiid ah gabaygaasi maanta waa taagan yahay. wuxuu yidhi nin waday nin igu wiirsaday nin i wadeeceeyey iyo nimaan wadkaygana rabin waaba sharan hayso. intaasay wadaaga u ahayd wadarta guuleede wad haddaan ka noolahay mar baan waranka deegayn. wadeeca allaay kaahay intaan wahabka maydhaayo. waa taagan yahay gabaygaasi maanta. waxaa kaloo jiray gabay uu tiriyey aw muuse ismaaciil in cismaan maxamuuda buu ahaa. darbadaaley baa gabayga lo odhan jiray. markaa tuduc yar baa ku jiray. tuducaasi wuxuu ahaa eebbow rucdiga nalagu dul furay duul kale u ku meeri. gabaygaasina waa nool yahay. axmed karaash waxaan leeyahay rucdi baa kugu wareegaalaysan. wuxuuna u badan yahay midaad geysatay. qoladaa degta badhan ee siciid cabdisalaa suldaanka u yahayna rucdigaasaa ku wareegaalaysan. midda qole ee furan waxa weeye dee rucdiga iska dulqaada. wax allaale iyo wax saaka aan odhan karo axmed karaash waa u hadheen inuu iska tago mooyaane ma jiro. haddaad tagto dee maxamar baad imanaysaa, maxaad ka soo doonaysaa? haddaad tagto ma hargeysaad tegaysaa adigoo dee hangool wataa. rucdigaa iska dulqaad. ishaa bidiqdeeda wax ka yarna waad iskaga dulqaadi kartaa. kibriyaadka kibirku waa go'i ilaahay. qofka go'i ilaahay qaatay meesha uu ku socdo isagay jirtaa. waxaan uu siciidani ka samaynayo garoowe waa kibriyaad.
balse waan dhowrayaa kibirkaasi meeshuu ku gebagaboobo alxaqiiqa dowladda federaalka mar labaad waxaan leeyahay xataa haddii telefoon garoowa idinka yimaado ha qabanina waxay odhan doonaan waa laysku kaaya diray waa taariikhaan u soo taagnaa waxba ha ku darsanina meeshay rabaan ha iskala dhaceen nimankaa la yidhaahdo harti waqooyi iyagaa lugahooda ku doontay puntland iyagaa yidhi waxbaanu wadaagnaayo waannu wada dhalannay waxna kama jiraan waa been sidii ay lugahooda ugala bixi lahaayeen waa hawl u taal usha hareerahooda lagu dhufay imikana korkooday ku socotaay oo lagu wadaa inay damqadaan baa waajib ah mar haddaan qofku damqanayn ninka is yidhaahda wax ku darso oo u heeli dee iyagaaba sheegaya waayo waa nimankaa ogol in ushu korkooda ku dhacdo alxaqiiqa siyaasiyiinta koonfur joogta dhowr gooroodoo horena waan sheegay sidii carta looga yimi oo uu ismaaciil cumar geedle gogosha u dhigay oo wax laysugu soo xidhxidhay waxay ahayd wax aad iyo aad iyo aad iyo aad u adag kala maqnaanshihii muddada faraha badnaa ee la kala maqnaa baana keentay in laysku soo boodo haddii ay dhacdo in taariikhdaas adag la xusuusan waayo oo ay dadku nin walba meeshuu ka yimi uu ku noqdo nin ii odhan karaa dib baan isugu keenayaa ma jirto siday isugu timaadaana waa adag tahay laa samax allaah waxaan leeyahay kibirka daaya goodiga daaya hanjabaadda daaya danta guud ah laga raaco danta gaarkaa ee yar qur'aanka ilaahay waxaa ku taalla waastaciinuu biالصabri waالsalaa ina allaha maca asaabiriin salaaddii baa waxaa laga horraysiiyey sabirka shalay iyo doraad waxbaan maqmaqlayay waxna waan akhriyayay meel la yidhi waa kororsiimo anigu ma arag laakiin waxaan arkay baarlamaan muddadiisii lagu furi lahaa dib loo dhigay nimankii
baarlamaanka madaxda u ahaa iyo guddigii joogtaduna way sababeeyeen. horena waan u sheegay abriil iyo may in baarlamaankaasu maqnaan doono. coronavirusna maan ogeyn, laakiin waxa aan taxliiliyey in ramadaan soo gelayo. waxa aan taxliiliyey wakhtiga la yidhi kaalaya kullayba in ay ka sii daahaan siduu dee dhaqanku ahaa. wax intaa ka badan anigu guddoonkii kama maqal iyo baarlamaankii guddigii golaha joogtada. juun baanu dib u dhignay, sababahaasaanu u dhignay. jawaabihii laga falcelinayay hadalkaa ama qoraal ha noqdo ama af ha noqdee waxay ahaayeen wax aan fiicnayn oo aan qurux badnayn oo aan soomaalinimada ku wanaagsanayn, xataa qofka aan ku wanaagsanayn, xataa mustaqbalkiisa u wanaagsanayn. waxaan leeyahay 30 sannadood oo dhibaato ah ninka aan ka dhergin nimuu doono ha noqdo, goortuu ka dhergi doono garan maayo. waxaan ku soo gebagabeynayaa allaahuma allif bayna quluubana wa aslax daata baynana. ilaahu ummadda soomaaliyeed qalbigeeda isu soo dumi oo heshiisii oo ilaahow dantooda garansii. الحقيقة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.